وحول لي النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثة قفكو مركو دنت وحا راعية صدق فيرجع اثنان لبا ويصول الله بنيا ويبقى معه واحد من نواقو هريا يتبعه أهله وماله وعمله وحا راعي قرابدي سي أهل كيسي وحا راعي مال كيسي وحا راعي عمل كيسي وحا صلى بنيا عم أهلكي إيا مالكي أيا صلى بنيا وحا الله راهيو لتشوغيا وحا ويان عملك أيا كوها حديث كاس الإمام ابن رجب وحول لي معنيه سوحا ويان قفك الدنيا دان شوغا وحا لغا مارمان إنو كدح نول ياهي أهل يا قرابو ولن نول ياهي إيا مال إيا حولا وكن نولادو لبداسو صاحب ليهي أو مرنا أن فاروقهي صاحبك كوباد أهلك مركا أي كقادان وي المينيا وين النحسين فراقد فاروقين ويكحمين منكو سوعلين كرام جنة النار منكو مجلين كرام وحيكوغو كالمينيان وكد داليان عيد أي كوغو حواليان إنه كغنيم سدان أو إلهي أجر وقرات سدان عيد أي كوغو روناني وحكا راعي أدونكنا ومريها عدعط ومالي والبا أنا أقول لبسينه هبل يهبلايو أو الدنيا دا كتغي أنا أقول لبسينوي نركودي انتي كالي داره صاحبدي قواردي هانتدي يباريه وحيكا قاتين صدح داس مرو aan arkayn qofka halkaas markay ahalku dhigaan ahalku way ka tagayaan haday duceeyaan oo ducada ugu roonaadaan ayaa ka jirta walidaalika waxa laga yaabaa inaynan u ducaynin oo ay ku mashquulaan maalka qaybsigiisa inay ku mashquulaan bal waxa laga yaabaa ahalka qaar kamidii inay yihiin cadow oo ay jecel yihiin adduunka in laga oofsado adduunka in laga kaxeeyo si maalka ay u qaybsadaan ilaahayna wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala ya ayyuha alladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhu xaasaskiina iyo awlaadiina waxa kamida qayb cadow ah ee ka digtoonaada ya ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala saaxibka labaad وهانتدادا نبي وحي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي ابن آدم وحي ليه مالكيغا 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 معنى هذا الدنيا مركو جوغا وحي ليه حولهايغا حولهايغا وكفانيا اسغا ايا دفاعنيا واودوديا وحان انا لهب ليه مالي مالي وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت مالك أغميات كل هذا إلا وحال عنطي وآد بدميسي مويانه أو لبست فأبليت أما آد دوبسطي أو حرطي أو باليوبي أو بابيسي أو تصدقت فأمضيت أما آد صدقيستي أو وحويان آد هرمرستي مويانه وحكلا مياد مالكاغا أدكل لهذا وحكلا مالكاغا كماني وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس وحي انت كسوهري قفك وحي اوغا تغيا وكتغيا ددكيبونا اوغا تغيا dad ayaa dhaxlay oo qaybsanay maalka taladiisu marka waxa weeyaan laba qaybood weey maalka haysa mid adigu aad leedahay iyo mid aadan lahayn oo aad moodo inaad leedahay raka dambeeya aad u haysid nabigaana yiri calayhi salaatu wasalaam ayyukum maalu warithihi ahabbu ilayhi min mali maalka qofka dhaxlaya oo ka qaadan doono iyo maalka asagu leeyahay qofku keebaa jecel oo midka laga dhaxlaya ka dooranaya markaasay saxaabadu waxay yiraahdeen ma minna ahad illa wa maaluhu ahabbu ilayhi
qof ma jira ilaa maalkiisuu jecel yahay midka qofka la qaadanaya wuxuu ka jecel yahay midka asagu uu qaadanayo markaasaa nebigu fasiray sala allahu calayhi wasalam fa inna maalahu maa qaddam wa maalu waarihihi ma akhar maalka uu leeyahay qofkan oo dhabta ah waa midka uu hormarsado weeye midka uusan lahaynna waa midka laga dhaxlayo oo harahayo hebel iyo hebel u harayo weeye ama baariyaal ha kuu ahaadeen ama ha kuu ahaadeen kuwa caasi kugu ah mar walba dhaxalkii way qaadanayaan ayaga ayaana iska leh danahooda ayayna ku oofsanayaan adiguna waxa aad leedahay waxa aad shaqaynaysid waa inta aad cuntay inta aad xiratay inta aad hormarsatay walidaalika camalka qofku marka uu leeyahay camalka saalixa oo ah midka saddexaad oo qofka raacaya waa camalkaas markuu qofka raaco wuu la joogayaa qabriguu la gelayaa wuu kula baaqi noqonayaa qiyaamahana wuu la soo baxayaa jidka siraadka wuu la marayaa jannada iyo naartana waxaa lagu qaybinayaaba waxay yihiin camalka maanta halkan ku camal falaysa saaxiibo badan oo aad lahayd camalkoodii waa xirma istikfaar iyo toobadkeen laga yeeli maaha sadaqo badan oo ay la bixi lahaayeenna jaaniskeedii waa ka xirma cibaado badan oo ay samayn lahaayeenna way ka istaagtay camalkoodii way go'een adiga ayaana wax ka qaaday oo qabri hebel geeyey oo ciidda u kala jeexay oo soo xabaalay oo ciidda ku ogaatay oo ka soo laabtay adiga ayaa baaqi ah oo nool raggii tegoo aakhiro aaday waxbay arkeen laakiin meelay ka soo hadli karaan oo fariinkaaga soo diri karaan ma aha meel aad ka caawin kartidna ma aha ducada ugu roonow waxaadna ku didaashaa middaada aad maanta leedahay inaad badbaadiso maanta tale ayaa leedahay caqligaagii baa shaqaynaya wixii dembi kaa dhacay ilaahay oga toobadkee xuquuqda muslimiintu ay kugu leeyihiin iska gud camalkaaga maanta hagaaji asaga ayaa gogol kuu noqonahaya man kafara facalayhi kufruh waman camila saalixan falianfusihim yamhaduun qofkii gaaloobay gaalnimadu dushiisa asagay ahaatay qofkii camal saalixa la yimidna naftiisa ayuu gogol fiican u dhigay camalku wuxuu kuu noqonayaa gogol iyo barkin iyo go'aad huwatid iyo firaash aad ku seexatid ayuu camalkaagu noqonayaa ama naar buu kuugu noqonayaa sidaas dhinac walba ayaad ka cadaabantahay ama raaxo iyo barwaaqo ayuu sidaas kuugu noqonayaa dhinac walba ayaa ka nimcaysantahay camalkaaga marka hagaaji waxa ilaahay uu ku siiyey subxaanahu wa tacaala la bax oo aakhiradaada u hormarso اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار